dugsiyada Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي يا والد والسلامتين. ومعنا عبد الرزاق محمد عبد الله. يوم حيصدني لبعض مادة علم بالشدة فصل هذا لحاد. هذا نسحسسنه حيصدي هراء وحين كسر هذا الله. حيصدي هراء وحين كسر هذا الله. The effects of the colonial powers on the Horn of Africa. raadkii iyo saameyntii ay gumaystayaashu ku yeesheen wadamada geeska Afrika. Waxaynu ka soo hadalnay saddex qodob ayaa ugu waaweynaa. Saddexda qodob oo kala ahaa political effects, saameyntii maartay xagga siyaasadda, iyo qodobka labaad oo ahaa economic effects, iyo kii saddexaad oo ahaa land disputes. Waxa kale aynu ka soo hadalnay siyaasaddii loo yaqaanay neo-colonialism oo ahayd a new form of colonization. A new form of colonization. سياسة جميسي أو عصب. هذا ما. هذا أنت حسوسينه أما دبيرة مراجعينه ما أنت عشر كيني لبعض أما ضد علم بالشدة أيا أينو هالكن كوباهين دورنا. عشر كحجة واحد ونقولنا يا the government systems of the countries in the Horn of Africa. نظام كا dawladeed ee maaratay wadamada geeska Afrika. nidaamka dawladeed ee wadamada geeska Afrika isku maamulaan. The countries wadamada in the Horn of Africa geeska Afrika have separate governments waxa ay leeyihiin dawlado kala gaar ah with separate political systems. dawladahaasi oo nidaamkooda siyaasadeedna uu kala gaar yahay. Each country has its own currency and national flag. Wadan kasta waxa uu leeyahay lacag u gaar ah iyo calan u gaar ah and government system iyo maartay nidaam dawladeed oo u gaar ah. Saddexda qodob ayaa noqon kara saddexda qodob ee dawlad kastaba lagu aqoonsan karo. Waa the three main basic systems of the governments in the Horn of Africa. Each country have a currency, national flag, and government system. In the following lessons, عشرات هذا بصوصة. We shall talk وحين كهذا دورنا about the Horn of African countries وتمد جيسك Africa and their government systems. يعني نظام كود الدولة أيه نكهذا دورنا one by one. أو أينو هل وجهذا دورنا أمام المد. وتمد أسي كان صارنا بيجك إنه حاجة أنا قلنا يا بوجا لحية تضاعت بوجا طبعاً وحنوصل رصاد the government system in Ethiopia. نظام كدولة الدولة كإثيوبيا أيه نوع حاجة. The government system of Ethiopia. The government system in Ethiopia. نظام كدولة الدولة كإثيوبيا. Ethiopia was never colonized. لم يجمعين. ودمر أفريقيا أن لجمعين أي إثيوبيا كشرة. Ethiopia was never colonized. ذلك إثيوبيا يودن كا لا يقانون ليبيريا. ذلك ليبيريا قلبت كأفريقيا لبعض ودن أنا أفريقيا لجمعين أي هايان سدعات كسر قطعي مادة علم قبل شدة عشران شهر. Although in Casto it was under Italian occupation, in Casto Italiani were so good at Galan. The Italians occupied Ethiopia by force. I heard Marte Kuso Gudagalan from 1936 to 1941. Kunsagal Bokol Lihya Sodanki, Ila Kusagal Bokol, Kobia Fertanki, Aya Italian Ethiopia, so Gudagalai, Slakuso de Gatan. The Italian occupation in Ethiopia and the Battle of Adwa. Dagaalkii Adwa ee Ethiopia Talyaaniga dhex maray ee Talyaaniga Ethiopia ku jabiyay. Hadda wixii inta ka horeeyay traditional emperors hogaamiye dhaqameed. Traditional emperors
hogaamiye dhaqameed baa ruled Ethiopia xukumi jiray nidaamka dawladeed ee Ethiopia ka jira waxa ahaa an empire or kingdom. The last emperor of Ethiopia was Haile Selassie. Hogaamiyihii ama boqorkii Ethiopia ugu dambeeyay waxa ahaa boqorkii la oran jiray Haile Selassie ama Haile Selassie. He faced many problems. Boqorkaasi Ethiopia xukumayay waxa la soo gudboonaaday dhibaatooyin fara badan. He faced many problems. Dhibaatooyin badan ayaa la soo gudboonaaday. His people dadkiisu demanded waxay dalbanayeen ay doonayeen a more democratic form of government. Nooc dawladeed oo aad u dimuqraadi ah. Dawlad dimuqraadi ah in loo sameeyo oo nidaamkan boqortooyada laga guuro ayay doonayeen. But laakiin he did not introduce dadkiisii ma uu barin reforms. Dib u habeyn inuu dawladdiisu ku sameeyo. Reform waa change of government system. Inuu bedelo nidaamka dawladeed maartay oo la yimaado reform or reshuffling waa uu diiday. Early 1970s haddaba horaantii 1970kii unrest and riots against the government xasilooni daro iyo demonstrations ama waxa loo yaqaano mudaharaadada riots mudaharaadada against the government lagaga soo horjeedo dawladda Haile Selassie became more and more frequent ayaa waxay noqdeen waxyaabo soo noqnoqda. Inta markaynu ka nimaadno early 1974 horaantii 1974kii there were waxaa jiray strikes shaqo joojin by workers ay sameeyeen shaqaalo. Strike waa to stop working for some time. In shaqada muddo la joojiyo. To stop working for some time. Waxaynu nidhi horaantii 1994kii there were strikes by workers. Shaqaalihii ayaa waxay ku kaceen shaqo joojin in the capital Addis Ababa. Caasimadda Addis Ababa ayay shaqaale weynihii kaga dhawaaqeen in maaragtay shaqada ay joojiyaan. Iyagoo dee saanay ugu faraxsanayn nidaamkan boqor Haile Selassie kaga soo horjeeda. Sidoo kale the armed forces mutinied. The armed forces ciidamadii maaragtay militaryguna they mutinied. They refused waxay sameeyeen kacdoon ay ku diidayaan amar qaadashada. Refused the orders mutinied. Ciidamadiina waxay sameeyeen maartay iyaguna kacdoon iyo maartay inay amar diido fuliyaan. Labadaas arrinba waxa ahayn laba arrin oo dawladda laga soo horjeedo maartay boqortooyada ah. Inta markaan ka nimaadno in February 1974 bishii February 1974kii a professional government dawlad maartay dadka hogaaminaya ay xirfad maartay inta ka sareysan leeyihiin ayaa was set up la sameeyay. And its leader was Makonnen. Waxa hogaamiye ka noqday in lagu magacaabo Makonnen ayaa hogaamiye ka noqday dawladda 1974 la sameeyay maartay Ethiopia maamulay. However, xaaladdu siday doontaa ha ahaatee in September 1974 bishii September 1974kii a group of armed officers koox ka mid ah maartay saraakiishii ciidamada organized ayaa waxay soo abaabuleen a military coup Afgambi military inay dawladdii afgambiyaan
ayay maartay saraakiil ciidan soo abaabuleen. Haile Selassie was officially deposed. Haile Selassie si rasmi ah ayaa xukunkii looga tuuray. Haile Selassie was officially deposed. Haile Selassie xukunkii ayaa maartay si rasmi ah looga qaaday. Ayaynu nidhi. Many people were executed. Dad fara badan ayaa la laayay. Killed. Dad fara badan ayaa la laayay, assassinated or killed. Including dadka la laayay waxaa ka mid ahaa hogaamiyihii ku-meel gaarka ah ama hogaamiyihii la doortay oo Mark Conan la odhan jiray. Haile Selassie died in August 1975. Haile Selassie waxa uu dhintay bishii August 1975 ayuu dhintay. People assumed dadkuna waxay u qaateen that he was killed, in la dilay ay dadkuna u qaateen. Haile Selassie died in August 1975 and people assumed that he was killed. The people supposed that he was killed. Dadkiisina waxay u qaateen in la dilo maartay afgembiga ciidamada sameeyay ay dileen. Tafare Benti became the leader of the military government. Nin lagu magacaabi jiray Tafare Benti ayaa waxa uu noqday hogaamiyaha dawladda military ee Ethiopia. However, xaaladdu siday doonta haatee, he was ousted by Mengistu Haile Mariam in 1977. Waxaa eriyay Mengistu Haile Mariam ayaa eriyay in 1977. Taariikhdu markay ahayd maaragtay waxaa xukunkiisna ka tuuray Mengistu Haile Mariam. He was ousted. Waxaa shaqadii ka eriyay amaba maartay xukunkii kala wareegay oo by force kala wareegay Mengistu Haile Mariam. Mengistu Haile Mariam ayaa xukunkii la wareegay 1977 oo kala wareegay Tafare Benti. The Soviet Union dawladda ama midowgii Soviet ama wixii loo yaqaanay USSR, United Soviet Socialist Republic. Midowgii Soviet wixii loo yaqaanay ayaa provided the Ethiopian government with money and military assistance. Waxa uu u keeni jiray dawladda Ethiopia ee Mengistu Haile Mariam hogaaminayo dhaqaale lacageed iyo maartay gargaar ciidamada militariga dhismihiisa ahba ku caawin jiray. Dawladda Mengistu Haile Mariam waxa taageerayay Soviet Unionkaas oo Ruushka iyo Ukraine iyo ilaa 15 wadan oo maartay ay ku bahoobeen oo maanta kala wadamo madax banaana. This is why Ethiopia adopted socialism. Taasina waa sababta ay Ethiopia u qabatintay nidaamka dawladeed oo loo yaqaan hanti wadaaga. Socialism as political system. Nidaamkeeda siyaasadeed 70kii iyo 77kii iyo wixii ka dambeeyay waa socialism. Socialismna waa hanti wadaag. In 1984 aynu nimaadno 1984 the Ethiopian Workers' Party was founded. Waxaa la aasaasay xisbiga shaqaalaha Ethiopia ayaa la aasaasay 1984. Mengistu became a dictator. Mengistu Haile Mariamna waxa uu noqday ninka la taliya ah oo dictatorship ku shaqeeya wadanka ku maamula 1987. The first presidential elections were held in Ethiopia. Xilligaasi doorashooyinkii madaxtinimo ee ugu horeeyay ayaa ka dhacay Ethiopia. And Mengistu became the president of the country. Waxaana dalka madaxweyne ka noqday Mengistu Haile Mariam ayaa maartay madaxweyne ka noqday. Ethiopia had a House of
representatives Ethiopia waxay leedahay golo wakiilo ama golo baarlamaan ayay leedahay House of Representatives consisting of oo ka kooban and 813 members 813 xubnood 813 weeyaan golahooda baarlamaanku however xaalad say doonta aatee people in Eritrea and Tigray regions dadka maaragtay ay imika Eritrea u badan ama dadka Tigrayga ama Eritrea oo xilligaasi Ethiopia qayb ka ahayd dadka Tigrayga ee Eritrea degaa and opposed the government dawladii way mucaaradeen oo way ka soo horjeedsadeen they opposed the government way ka soo horjeedsadeen they founded two liberation movements waxaanay sameeyeen laba ma garanaysay dhaqdhaqaaq ama xarakad urur two liberation movements laba dhaqdhaqaaq ama laba urur oo maartay xornimo doon mid wuxuu ahaa the Eritrean People's Liberation Front ururka jabhadda xoreynta dadka Eritrea ayuu mid ahaa ama mid waxa loo yaqaanay the Eritrean People's Liberation Front ayuu ahaa midna wuxuu ahaa and the Tigray People's Liberation Front ka kana waxa lagu magacaabayay ururka jabhadda xornimo u dirir ee dadka Tigrayga in Eritrean ku labadaas movement ay sameeyeen the two movements labadan urur ama dhaqdhaqaaq fought waxay u dagaalameen with the government oo ay la dagaalameen with the government of Mengistu Haile Mariam dawladii maartay Eritrea ka Mengistu Haile Mariam ay la dagaalameen labada ururba iyagoo mucaaraday there were waxa jiray prolonged wars dagaal maartay muddo badan socday oo daba dheeraaday which destroyed kaas oo baabiyay and huge government properties waxa uu baabiyay baa lagu yiri hanti dawladeed oo aad maartay u baaxad leh waa very large enormous government properties and killed waxaana ku dhintay so many Ethiopian fara badanna maartay waa uu ku dhintay dagaalkaas ay jabhadaas la gashay muxuu sababay the war destroyed a huge government properties and also killed many Ethiopians dagaalkaas oo kale waxa uu laayay Ethiopian fara badan ayaa u laayay the Tigray People's Liberation Front jabhadii xoreynta dadka Tigraygu made waxay sameeyeen jabhadaasi an alliance isxulafaysi way isku biiraan labadii urur with the Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front waxa ay ku biireen baa lagu yiri jabhad kale oo maartay iyana loo yaqaano Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front oo magaceeda loo soo gaabiyo an EPRDF oo noqonaysa jabhadda maartay jabhadda kacdoonka dimuqraadiga ah ee dadka Ethiopia oo EPRDF loo soo gaabiyo waa isku biireen between the years intii u dhaxaysay sanadadii 1988 to 1989 ilaa 1989 the Soviet Union collapsed Soviet Unionka oo maartay ay taageerayay Mengistu Haile Mariam taageerayay Soviet Unionki ayaa burburay destroyed and Ethiopia missed Ethiopiana way weyday it is support taageeradii maartay military iyo dhaqaale ee maartay Soviet Union ku siin jiray ayay Ethiopiana weyday therefore said it was impossible suurtagal may ahayn for Mengistu Haile Mariam ama Mengistu government dawladdan ama xukuumadan Mengistu to exist in a jirto any longer in inta ka sii badan and eventually finally he fled to Zimbabwe wuxuu u baxsaday fled to Zimbabwe dalka Zimbabwe ayuu baxsaday where Mengistu Haile Mariam and fled Zimbabwe xaga Zimbabwe u baxsaday oo loo ceyrsaday in early 1991 horaantii 1991 ayaa la eriyado lagu daba dhacay in jabhadaas ku kacayde
In August 1991, bishii August 1991, EBRDF, Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, xisbigii EBRDF, captured Addis Ababa, waxay qabsadeen Addis Ababa ayay qabsadeen, where Meles Zenawi was elected as the head of the interim government. Waxaana la doortay Meles Zenawi. Meles Zenawi beri dhaweyd dhintay ayaa maartay loo doortay inuu noqdo the head of the interim government, madax uu ka noqdo dawlad ku meel gaara. Interim government, dawlad iyo xukuumadda ku meel gaarka ah ee Ethiopia inuu maartay madax ka noqdo ayaa Meles Zenawi loo doortay August 1991. halkaa waxaynu ku soo gabagabaynaynaa arday casharkeennii labaad ee maadada socialka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waad salaamantihiin xaafadaha isku bambaaniya hana soo bixina insha Allah.